hay soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada seasonkii inoo socday qaybtiisa labaad. muuqaalka laagsar waa canshuurta keliya kugu leeyahay. sidoo kale janaal ku soo bir haddii aadan weli ku soo birin waxaa saarana wadadii aa ku gaari lahayn 200,000 oo subscribe. intaas diyaa samaysay aad yaa u mahadsantahay. sidoo kale waxaan idinku codsanayaa in instagramkiina iga soo follow gareysaan. seasonkan hal qayb ayaa hore aaga soo sameynay. haddii aadan soo daawanin fadlan janaalka dib ugu laabo oo soo daawo koobkaada shaa soo qaado. haddana aan gudagalna muuqaalkeena. Dr. Levan gabadhii Samira ayuu qolka dib ugu soo celinaya maxaa yeelay ma uusan rabin inay ogaato arrimaha ku saabsan hooyadeeda iyo meesha ay aaday. markii uu Maryan iyo gabadheeda Zainab u imaadan wuxuu weydiinayaa ayaga cidda ay yihiin iyo meesha ay ka imaadeen. xaaskaygana meesha ay jirto waa taqaaniin ayuu ku dhahayaa mana laga yaabo idinkoo aadan sheegin inaa halkan aa ka tagtaan. laakiin Maryan ayaa ku dhahaysa looma baahna adiga sidaas inaad samayso. waxay u sheegaysaa halkan inay xaaskiisa ay keentay weliba loo keenay inay ka shaqayso. annaga markaa imaanaynay ayadana waa ay sii bixisa ayuu ku dhahaysa mana aqaana meesha ay aaday. laakiin Dr. Levan hadaladooda ma aaminayo. asagana waxa uu u maleeyaa inay tuuga ay yihiin waxaana macquul ah inuu booliska uu gacanta u geliyo. intaas kadib Levan aabihiis ayaa u wacaya. markuu aabihiis u imaadan wuxuu arkayaa aabihiis xoogaa nadaafadiisa inay wanaagsan tahay. aabihiis ayaana ku dhahayo maanta anigoo nafta iga bixi rabto ugu dambeyntii haweeneydaas iyo gabadheeda ayaa iga soo gaareen waana ayaga ayuu ku dhahayaa kuwa nafteeda badbaadiyeen. xilligaasi Maryan ayada qolka ayay kula jirtay Dr. Levan iyo aabihiisa. laakiin silan filan Maryan gabadheeda Zainab oo qeylinaysa ay qaybta hoose ee ka maqlaysaa. markay soo degatana waxay arkaysaa gabadheeda Zainab oo Mira ku dhagan waxayna ku dhahaysay adiga iyo hooyadaada tuuga ayaa tihiin waxaana loo baahan yahay inaad sheegtaan hooyadii meesha aad geyseen. isla markaasi Dr. Levan ayaa Mira u kaxinaya qolkeeda. sidoo kale Maryan iyo gabadheeda Zainab alaabtooda ay soo qaadanayaan oo waxay go'aansanayaan inay gurigan ay ka tagaan. midaasina Dr. Levan ayaa ogaanaya isagana wuxuu ka codsanayaa inaysan midan ay samaynin. laakiin midaasi Maryam ayada waa ay ka diidaysaa. waxayna ku dhahaysaa gabadhaada anigu waxay uga hor ceebaysay gabadheeda horteeda. midaasina uma dulqaadan kara ayay ku dhahaysaa mana laga yaabo guriga inaad dib ugu soo laabto. intaas wax ka dambeeyna Maryan iyo gabadheeda waa ay ka soo tagayaan halkaasi. isla markaasi guriga waxaa imaanayso Levan walaashiisa taasoo Hinda lagu magacaabay iyo ninkeeda. walaalkeeda Levan ayay ku dhahaysaa xaaskaada basantii maalmahan oo dhan ay safar ay qorsheynaysay ee adiga lama aadan soconin miya. isla xilligaasi ee hadalladaas ay ku dhawaaqaysay Levan walaashiisa halkaasi waxaa joogtay Levan gabadhiisa Mira. dhagaheedan waxay ku maqshay hooyadeeda inay safar ay u baxday weliba aanan la ogeyn meesha ay aaday. aabaheeda ayayna ku dhahaysaa waxaan oo dhan adiga ayaa ka dambeeyey. intaas wax ka dambeeyna waa ay ka soo tagaysaa oo qolkeeda ayay ku laabanaysaa. dhinaca kale Maryan iyo gabadheeda Zainab ugu dambeyntii waxay soo gaarayaan gurigooda. Maryam isla markiiba waxay isku diyaarinaysaa garaacista ninkeeda maxaa yeelay ayada mar walba ee qalad ee sidaan camal ee samayso waa la garaaci jiray. maantana qalad weyn ayay bagashay oo ayadoo aanan la ogeyn ayay guriga ee ka tagtay haddana waa ay ku soo laabatay. laakiin silan filan guriga Arif ayaa ku imaanaya. wuxuu ku dhahayaa Idris ayaa la rabaa in xukun lagu fuliyo maadaama la ogaaday khiyaanadu asaga uu dadka uu ku samayn jiray. marka adiga iyo xaaskaada iyo gabadhaada waa inay imaadaan ayuu ku dhahayaa meesha uu xukunka uu ka dhacayo. intaas wax ka dambeeyna waxa la iskugu imaanaya meeshii uu xukunka uu ka dhacayay. rag iyo dumarba waa ay iskugu imaanayaan laakiin xilligaasi rag iyo dumarka kala meel ayay kala joogeen. Idris dembigan inuu galay dhab ahaantii asaga Maryam ayaa ku cadeysay. intaas wax ka dambeeyna qol gaar ah ayaa la gelinaya si dhibaatadiisa halkaas loogu soo xaliyo xukunkiisana loogu soo rido. sidoo kale meeshaasi Azar iyo Sheikh Saad ayaa joogeen. hoggaanka xilligaasi ugu sareeyo Azar ayuu ahaa maadaama asaga uu yahay dhaxal sugaha kooxda. sidoo kale dumarka kooxda oo dhan hal meel ayay iskugu imaanayaan oo ragga waa ay ka soo dhexbaxayaan. xilligaasina waxay u khudbeynaysay Xusni taasoo ahayd Sheikh Saad xaaskiisa. waxaan ogaanaynaa ayada khudbadeeda oo dhan xoogaa inay ku garbaashayso Maryam iyo gabadheeda maadaama ay Maryam ay tahay qofkii ka dambeeyey in kalfadhigan la iskugu imaado weliba Idris xukun laga soo saaro. halkaasina waxaan ku ogaanaynaa Sheikh Saad xaaskiisa Xusni iyo Idris inay walaale ay yihiin. dhinaca kale Dr. Levan gabadhiisa Mira ayuu dib ugu soo laabanaya. laakiin xilligaasi waxaan ogaanaynaa Mira ayada inay iska seexatay. intaas kadibna wuxuu dib ugu soo laabanaya walaashiisa iyo seedigiisa. wuxuuna kala hadlayaa habeenkaasi muhiimadda ay leedahay in ilmo la dhalo iyo in la xanaaneeyo. Levan xaaskiisa ayada waxay jeclayd ilmo fara badan inay u dhasho ninkeeda laakiin midaasi isaga ayaa ka soo horjeeday maxaa yeelay waxa uu aaminsanaa xaaskiisa haddii ay ilmo fara badan ee dhasho inaysan awoodin inay xanaaneyso. midaas haddii ay dhacdan ilmaha halkaas oo ay ku baaba'ayaan xuquuqdooda ayaana ku dhumayso. mar walbana waxa wanaagsan ayuu ku dhahayaa ilmaha marka mas-uuliyadooda aa qaadi karto weliba noloshooda aa maareyn karto inaad dhasho. taasina waa sababta mar walba asiga iyo xaaskiisa basanti ay u kala fikir duwanaayeen. dhinaca kale dhammaan kooxdii dumarka waxay iskugu imaanayaan masaajidkii ee ragga ay ku jireen maadaama ugu dambeyntii uu xukunku Idris uu ku dhacay weliba in qaabtiisa uu mari doono. dhammaan dadkii meesha joogeen waxaa loo sheegayaa qof walba oo qalad sameeyo in sidan oo kale uu inqaab uu u mari doono. intaas wax ka dambeeyna Idris waxaa lagu amrayaa dadka hortooda inuu garku iskaga jaro. dhab ahaantii xilligaasi
Idris walaashiisa Xusni oodin ayaa ku taagneed oo meel ay joogto ay garan waynaysaa maxaa yeelay walaalkeed ayaa dadka lagu horceebeynaya ayadan waxba kama qaban karto xukunkan dhammaan islaamkii halkaasi joogay way u sinaayeen qof walba qalad sameeyna xukun ayaa ku dhacayo intaas waxa ka dambeeyay Maryam waxay imaanaysaa qolkii hadeertan uu Idris uu ka soo baxay irida horteeda habeenkaasina ayadoo jeefto ninkeeda Naciim ayaa hurdada ka soo kicinayo kadibna wuxuu weydiinayaa markii qolka ay gashay ayadu wax loo soo sheegay Maryam ayaana ku dhaheeso kaliiriya ayaa la soo fasiray sidoo kale waxa la dhaayay ku dhaheesaa riyadaasi qofna lama wadaagi kartid subaxda xigta Mira way soo kaxaysaa oo waxay bilaabaysaa in iskuulkeeda ay isku diyaariso aabaheeda Levan ayaana ku dhahayo waxa wanaagsan adiga waxbarashadaada inay diiradda saarto waliba ku dadaasho waxa maanta ku sheegayna haddii aad sida ay tahay u samayso mustaqbalka waxa ku balan qaadaya adiga dadka inay ku jeclaan doonaan noloshaadan waa ay wanaagsanaan doontaa maxaa yeelay adduunkan qof walba wax bartay waa lagu abaalmariyaa dhinaca kale Zainab ayaa arkayna kadib markii ay ka soo kacday hurdadan ayada salaadii waajibka ahayd ee salaada subaxay iska bixinaysaa kadibna waa ay labisanaysaa oo madrasadeeda ay isku diyaarinaysaa inta aysan bixin koorna aabaheed ayaa kala hadlayo xishoodku waxa uu yahay iyo sida loo noqdo qof xishood badan wuxuu ku dhahayaa mar walba waxa loo baahan yahay diintaada inaad ku dadaasho weliba aadan ka bixin gurigaaga sidoo kale xaaskiisa Maryam ayuu ka dalbanayaa inay shaqadii dib ay ugu laabato si ay noloshooda ay ugu maareeyaan lacagaha yar ee helayaan dhinaca kale Dr. Levan maalinkaasi gabadhiisa Mira wuxuu rabay inuu iskuulka oo mooto uu ku geeyo aydan markay midaasi ogaato aad ay ugu farxaysaa maxaa yeelay waa ay jecleed mootada inay raacdo midaas ayaana dhacaysa ugu dambeyntii meesha waa laga soo kaxeynaya ayadoo mootada saaran dhinaca kale Sheekh Saad ayaa arkayna asagana gurigiisa ayuu imaaday oo wuxuu arkay xaaskiisa Xusni oo ilmeynayso Xusnina ayada ma aysan rabin xiligaasi inay ninkeeda Sheekh Saad ay la hadasho maxaa yeelay asaga ayaa ka dambeeyay xukunkii walaalkeeda lagu riday laakiin wuxuu isku dayayaa inuu wax uu faansiiyo oo wuxuu ku dhahayaa tani ma ahan go'aan aniga aan leeyahay ee go'aankaasi waa go'aan dastuuri ah dadka oo dhan ayaana loo baahan yahay inay ku dhaqmaan wuxuuna u sheegayaa xitaa aabaheeda ama hooyadeeda haddii ay qalad ay samayso in xukun lagu ridi doono asagana uu midaas uu waxba uusan ka qaban karin maxaa yeelay wuxuu ku dhahayaa bulsho oo dhan ayaa ku midaysan intaas waxa ka dambeeyay Sheekh Saadi meesha waa uu ka tagayaa laakiin waxa imaanayso gabadhii ay iska dhaleen asiga iyo Xusni taasoo visa lagu magacaabay visa hooyadeeda ay ka dalbanaysaa wixii hore oo dhan inay iska ilowdo maalinkaasina halkaas waxaan ku ogaanaynaa visa ayada inay rajaynayso inay guursato Azar hooyadeeda ayayna ku dhahaysaa markii aniga Azar guursado xukunka oo dhan anaga iyo dib noogu soo laaban doona oo gacanteena kama bixi doono markaasina sidaa rabna ayaa wax u maamuli doona qofka rabnana xukun ayaa ku ridi doona dhanka kalena ugu dambeyntii Mira ayada iskuulkeeda ayaa la keenaya laakiin isla markaas mid ka mid ah ardayda ee iskuulka iskula dhiganayeen ayaa ka dalbanayo maanta inay soo wareegaan Dr. Levan walaashiisa Hinda ayaa kalkaaliso u keenayso taasoo loogu talagalay inay xanaaneyso aabahooda isla markaas in Levan qoladii bangiga ayaa soo wacayaan oo waxa loo sheegaya xaaskiisa lacag fara badan inay kala baxday akoonkii ee labadooda ee wadajirka ee ku ahaayeen maalinkaasina Maryam ayadoo jikada ku jirto Xusni ayaa u imaanayso waxayna ku dhahaysaa adiga dhab ahaantii waa kibir badan tahay laakiin kibirkaadu waxa igu balan ah ayuu ku dhahaysaa in halkan aan ku soo afjaro magaalada markaa ka tagaysidna adigoo maskiin ah weliba degan ayaa dib aaga laaban doonta sidoo kalena anigu waa la socdaa ayuu ku dhahaysaa adiga inaa ka dambeysay xukunkii ku dhacay walaalkayga laakiin silan filan halkii ay joogeen waxa ku imaanayso Idris xaaskiisa taasoo Maysar lagu magacaabay oo Jarmalka ka imaaday dhinaca kale Zainab waxay imaanaysaa maktabada oo halkaas waxay rabtay inay ka hesho buug xisaabeed si ay cilmigeeda xisaabta ee buugaasi ay ugu sii kordhiso ayadoo iskuul aanan tagin laakiin silan filan maktabadii Azar ayaa ku soo galayo intaas wixii ka dambeeyay Zainab ayadoo ordaysa ay ka soo baxaysaa maktabada Dr. Levan mar kale qolada bangiga ayaa soo wacayaan oo waxay la wadaagayaan xaaskiisa in lacag kale ee la baxday dhab ahaantiina midaas Levan asiga welwel ayay ku qabanaysaa wixii aataba asiga iyo walaashiisa silan filan waxay ku maqlayaan kalkaalisadii cusbeed oo hadeersan la keenay oo qeylinayso markay u tagaan waxay ogaanayaan aabahooda inuu maraq uu gacantu aaga daadiyay midaan haddii ay dhacdayna dhab ahaantii uma aysan muuqanin kalkaalisada ayada halkan inay kasii shaqayn doonto intaas wixii ka dambeeyayna Levan aabihiis ayuu u tagayaa wuxuuna ka codsanayaa inuu joojiyo sidaan xun oo la dhaqmayo kalkaalisooyinka loo keenay inay asiga ay caabiyaan maxaa yeelay aniga kuma daryeeli kara ayuu ku dhahaya oo shaqooyinkayga ayaa iga badan xiligaas in Levan gabadhiisa Mira ayada waxay la joogtay saaxiibkeeda oo iskuulka waa ay ka soo tageen aydan waxay la wadaagaysaa hooyadeeda inay Jarmalka ay tagtay waxayna ku dhahaysaa isbitaal halkaas ku yaal ay ka shaqaysaa Mirana ayada waxay ku wareersaneed sida ay ula xiriiri lahayd hooyadeeda laakiin saaxiibkeeda ayaa ku dhahayo waa adigoo iska dhigayo bukaan ayada u socdo waxaana laga yaabaa markaas inaad la hadasho hooyadaada aydan fikrigaas waa ay ka helaysaa isla markaas ayna wacaysaa hooyadeeda basantina waa ay ka qabanaysaa ayadoo u malayso bukaan ayada u socdo laakiin markay ogaato gabadheeda inay tahay waa ay awood weynaysaa inay la sii hadasho isla markaasina Mira halkii ay joogtay abtigeeda ayaa ugu imaanaya kaasoo iskuul ka soo doonay wuxuuna ku dhahayaa adiga maxaa aga soo tagtay iskuulkaada laakiin Mira ayaa ka codsanaysa midan inuusan aabaheeda uu u sheegin dhinaca
kale Maryan iyo gabadheeda Zainab ayaa arkayna. Ugu dambeyntiina Maryan waxay waasay kaararkooda aqoonsiga ee ayada iyo gabadheeda, waxayna u malaynaysaa kaararkooda inuu aaga soo dhacay guriga Dr. Levan. Ugu dambeyntiina halkaas ay dib ugu soo laabanayaan ayada iyo gabadheeda oo isla socdaan. Dr. Levan markay wax walba ay la wadaageen, asiga waxa uu ka ogolaanaya inay gudaha ay soo galaan weliba qolka aabihiisa ay ka raadsadaan. Ugu dambeyntiina Maryan ayaa imaanaysa qolka aabihiisa oo waxay bilaabaysaa in meesha ay ka raadiso kaararkooda, laakiin isla markaas Maryan ay aragto Levan aabihiisa wejigiisa waxay dareemaysaa asiga inuu gaajaysan yahay. Ugu dambeyntiina cunto ay u soo karinaysaa oo way u keenaysaa. Sidoo kale Zainab xitaa ayadan waxay soo galaysaa qolkii ay ku jireen. Intaas kadibna Dr. Levan aabihiisa ayaa ka codsanaya Zainab inay qalinka ay qabsato weliba sabuuradda ay ku qorto wuxuu asiga u soo yeeriyo. Odaygana gabadha maskiinta oo aanan wax u baranin wuxuu u soo yeerinaya xisaab aad u adag, laakiin Zainab ayada midaas kuma u dhibtoonaysa oo waa ay kala tuuraysaa. Sida waxa uu moodaa waxa inay jaamacadda aaga soo baxday oo kale. Dhab ahaantiina Levan iyo aabihiisa midaas aad ay aaga helayaan. Ugu dambeyntiina guriga Mira ayaa imaanayso, ayadan markay aragto Zainab oo sabuuradda taagan weliba xisaab xalinayso waa ay ka maseeraysaa. Intaas wax ka dambeeyna odayga waxa uu dalbanaya inay dhammaan ay ka wada baxaan qolka, kaliina Maryam ay ugu soo reebaan. Wuxuu ku dhahayaa weligay ma aanan arkin maskaxda ee gabadhaada ay leedahay qof leh oo kale. Wuxuu ku dhahayaa ayada waxa laga yaabaa mustaqbalka inay noqoto fiisigis yaqaan. Intaas wax ka dambeeyna wuxuu ka dalbanayaa ayada inay u shaqeyso asiga. Imo daryeel ayuu ku dhahayaa mushaar kugu filanna aniga ayaa ku siinayo, laakiin hal shuruud ayaa ku xiran midaasi. Adiga mar walba halkan imaanayso gabadhaada Zainab ayaa hore u soo wadanaysa, anigana waxa igu balanaha ayuu ku dhahayaa cashir walbo aniga aqaano ayada inaa bari doono. Inta yar aan noolaha ayaana rabaa ayuu ku dhahayaa inay iga faa'iidaysato. Waxaana la wadaagi doonaa cilmi walbo aniga aqoon u leeyahay, maxaa yeelay aniga xanuunkii ahaayo daawo ma lahan, xilli walba ayaana laga yaabaa inay nafta iga baxdo. Xilligaasina Zainab ayada Mira ayay la joogtay oo ayada ayay la falgalaysay. Mira ayaana Zainab ku dhahaysa awowgeegu waxa uu aad u neceb yahay dadka xijaaban sida adigoo kale. Isla markaasina Zainab waxay dib ugu soo laabanaysaa qolka Levan aabihiisa, waxayna sabuuradda ay ku qoraysaa xisaab yar oo la fahmi karo. xisaabtaasina Zainab waxaan ogaanaynaa inay asiga ay rabto inay wax ay ugu sharaxdo, waxayna ku dhahaysaa gabadha ayadoo yar xijaab xirato waxay ka dhigan tahay inay tahay maskaxda qoyskeeda, laakiin midda aanan xijaab xiranin ayada waa ay ku adkaan doontaa maskaxdeeda si fiican inay wax u xifdiso. Habeenkaasina Levan mar kale ayuu qolka aabihiisa dib ugu soo laabanayaa, wuxuuna weydiinayaa waxa sii kordhiyey xiisada uu u qabo habeenaydan iyo gabadhayda. Laakiin aabihiisa ayaa ku dhahaya gabadhan aqligeeda waa mid cajiib ah, waxaan huba ayuu ku dhahayaa inay noqon doonto ayada qof caan ah dhankaas iyo fiisigiska. Habeenkaasina Zainab ayadoo oonaysa hooyadeeda Maryam ayaa arkayso, kadib markii ay weydiisana waxay ku oonaysa waxay u sheegaysaa ayada inay rabto inay waxay barato, laakiin ma aqaan ayay ku dhahaysaa sida laaga dhaadhicin lahay aabaheega. Maalinka xigana waxaan ogaanaynaa ugu dambeyntii Sheekh Saadi iyo xaaskiisa inay heshiiyeen. ayadan waxay walwal ay ka qabtay dumaashadeeda Maysar waxay halkan ay ka soo doontay. Ugu dambeyntiina Sheekh Saadi waxa guriga ugu imaanayo Azar. Saadi ayaa ku dhahaya waxa maanta la kulmi doonta Dr. Levan waa inay isdiyaarisaa. Sidoo kalena Maryam iyo gabadheeda Zainab waxay dib ugu soo laabanayaan Mayzar, taasoo markii hore u dirtay kaararkooda aqoonsiga si ay u shaqaaleysiiso. ayadan ugu dambeyntii waa ay u keeneen kaararkooda. Intaas wax ka dambeeyna Zainab ayaa hooyadeeda Maryam ku dhahaysa waxa rabaa guriga Dr. Levan inay dib ugu laabano, maxaa yeelay casharada waa aabihiisa uu isinay waa cashiro aanan innaba caadi ahayn, anigana waa ka helay. xilligaasina guriga waxaa joogeen Dr. Levan walaashiisa Hinda iyo kaaliyihiisa Isra. Dr. Levan xilligaasi isbitaalka ayuu joogay maxaa yeelay Azar ayuu la balansanay. maalinkaasi Azar isbitaalka waxaa la imaanayo Naciim. Dr. Levan waxaa loo baahnay Asar inuu maskaxdiisa u dhiso calashaan uu bar sida uu dadku u la dhaqmi lahay, laakiin Asar maalinkaas wuxuu dareemayaa Dr. Levan inaysan xaaladiisa ee wanaagsaneen, asigoo dhan wuxuu u muuqday sida qof meel kale ka fikiraya oo kale. dhinaca kale Maryam ayadu waxay dareemaysaa Hinda iyo Isra inay shirqool ay sameynayaan, calashaan ay rabaan ayada iyo gabadheedaba inay shirqoolaan. isla markaas ay fahantana Maryam ayada gabadheeda Zainab ay gacanta ka soo qabsanaysaa oo waxay rabtay inay guriga ay ka soo baxdo, laakiin markay iridda ay soo furto waxay arkaysaa Dr. Levan oo askar la socdaan. seasonkeena qaybtiisa labaadna halkan ayuu inoogu eg yahay. muuqaalka lagsar sii shargarey oo la wadaag saaxiibadaada, sidoo kale janaalkana ku soo biir haddii aadan weli ku soo biirin. waa saaxiibkiin Mohaas oo idin leh inta aan kaga kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga. bye bye.